wafdi ballaaran oo hogaaminayo aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen oo ay weheliyaan xubno sare oo kamid ah xisbiga kulmiye ayaa maanta si meeqam sare ah loogu soo dhaweeyay controlka bari ee magaaladaasi Gabiley waxaana soo dhaweyntan ka qayb qaadanayay maamulka heer gobol iyo heer degmo badiba hal doorka ku nool gobolkaasi Gabiley cuqaasha salaadinta iyo marti sharaf kale oo aad u waftiga ayaa socod dheer oo luga ku soo dhaxmaray dad weyn ee wadnaha waa magaaladaasi Gabiley gabagabadii waxa waftiga loo sii galbiyay Hotel Taj Plaza halkaasi oo ay ka dhacay munaasabad oo lagu soo dhaweynayo go'aanka Jamaal Cali Xuseen iyo ku biiritaankiisa xisbiga kulmiye oo kale waxa munaasabadani ay daaranayd garabka Jamaal Cali Xuseen ee gobolka Gabiley oo gabi ahaanba iskugu soo biyo shubtay xisbigaasi kulmiye waxaana dhammaanba mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay hadaladoodii kamid ah anigoo ah musharaxii xisbiga cid ee golaha baarlamaanka ee Jamaal garabkiisa ahaa oo sharaxnaa gobolka Gabiley Jamaal maanta taariikhda waxaan ugu darayaa horta kulmiye maanta waynu ku soo wadignay waa maalintii aynu soo dhaweynay garabkii taariikhiga ahaa ee aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen hogaaminayo oo ku soo biiray xisbi xaakimka kulmiye ayaynu soo dhaweynay dawayntaasi ha ahaato mid taariikhi weeye aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa Jamaal Cali Xuseen aad iyo aad baan ugu xambalyeynaa aad iyo aad baan u salaamaynaa waxaan leenahay hilinka maama Soomaaliyeed baa tirada hilinka haddii habeenkii laga halaabo daraartii waa dib loo helaa helitaankii maanta daraartii hore markii laga halaabo habeenkii hore markii laga halaabay haddii dib loo raadiyo hilinkii aad heshay waxaan leenahay Jamaal Cali Xuseen gudambana waa bari alxamdulilaahi rabbil caalamiin madaxweynenimadaaduna waa kaaga diyaar gobolka Gabiley Jamaal gobolka wuxuu kaga yaallaa lafdhabarta kaga yaallaa maantana wuxuu leeyahay ninna dhaqashuu kugu dhiidhiyey ninna duuruu kugu dhigayaa ninna dhalashuu kugu dhiidhiyey xisbiga dhalashuu kugu dhiidhiyey waxaan leeyahay geesi baa soo kordhay geesi baa ku soo biiray kulmiye geesi dhaqaajin karayo wax badan aqoontiisa loo baahan yahay aynu u baahannahay aragtidiisa iyo maanta meelaha fogaan muujisanayo ayaa maanta inagu soo biiray oo inala joogo xisbigeena maanta ku soo biiray aad iyo aad baan leenahay Jamaal ugu soo dhawow ama magacii gobolka Gabiley ku hadlaya in lagu tabcay la maalgeliyey maanta aanu ku taamayno halkan maanta fadhiya xildhibaanka ka nahay uu ka yahay si uu soo yahay inuu soo wado waxa kale oo leenahay Jamaal ku soo dhawow gobolka horumarka gobolka wax soo saarka gobolka barwaaqada gobolka goobta ku soo dhawow taasoo aynu soo dhaweynayno Jamaal Cali Xuseen aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen oo uu gobolkiisii yahay soo dhaweyn maahe waxaynu ku mahadnaqaynaa inuu soo galay xisbigii kulmiye taasina waa ka rajaynayay maalintii la yiri Jamaal Cali Xuseen baa soo galay anu nafteeda waxaan alawaan soo dhaweyn lahaa degmadii Gabiley gobolkii Gabiley oo dhan isaaka Jamaal daba socday iyo waftiga ballaaran ee uu hogaaminayay oo reer Gabiley ay muujiyeen boqolkiiba 50 inay ahaayeen ucid boqolkiiba 50 kalena ay ahaayeen kulmiye maanta haddii boqolkiiba 50 Gabiley naga maqnaa uu ku soo biiray xisbiga kulmiye aad iyo aad baan ruuxaantii ugu faraxsanahay dagaalo aniga iyo taageerayaashooda horta waxa ku soo biirtay cid lagu biiri lahaa ciddii ugu qiimaha badnayd xisbiga waxaa la wadaagi lahaa xisbigii ugu wanaagsanaa madaxweynada taageeri lahaa madaxweynihii ugu qiimaha badnaa oo walaagiisa jecel oo horumarkiisa jecel oo la jecelo lafta kaga jirta dalkan uu ka qabo oo ciddii wanaagsanna jecel oo ciddii dalka wanaagiisa ka shaqaynaysa soo dhaweeya ayaa ku soo biirtay isaga iyo musharaxa xisbiga muuse bixi cabdi waa geesiyaal soomaalinimadu ay ka dab tahay wey islimaadkeena wuxuu taagan yahay in aynu Jamaal Cali Xuseen oo isaga iyo taageerayaashiisii iyo intii kale ee u cidii hore ka
soo raacdayna ay quwaddoodii ku soo biiriyeen xisbiga kulmiye in aynu nidhaahno waad mahadsan tihiin bisha January 2017 horta waa sanadkan cusub intuu dhashay 2017 waa khudbadii ugu horeysa jeediyay 2017 gabiile baan ku koobay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sida qiimaha leh ee qadarinta leh ee noo soo dhaweysay aniga iyo waqtigaan hogaaminayay ee ka yimid magaalada Hargeysa ilaahay marka waxaan ku fariyaa in dadkeena abaaraha ka dulqaado in ilaahay qof walba inuu ku siiyo min bari ilaa qalbeed ilaahay waan ku fariyaa marka hore ilaahay raxmaadka inoo soo shubo marka labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxda gobolka maayirka iyo rasaafka rasaafka xildhibaanada golaha deegaanka iyo dhalinyaradii iyo haweenkii reer Gabiley kuwii la soo shaqeeyey in badan ii soo halgamay iyo kuwa maanta soo dhaweynaya labadaba si niyada u mahadnaqayaa horta siyaasadda Gabiley aniga siyaasadayda door weyn bay ka ciyaartay sababtoo ah waa meeshii ugu horeysay ee aan maxay ahayd markii aan xisbiga udub anigoo ah intii udub laga burburin ayaa imid Gabiley si fiican bay soo dhashay meeshii ugu horeysay Hargeysa ka baxsan ee booqasho ee aan goob maalinta labaad baan ka galay golihii deegaanka dirqi waxaa laga badiyay kulmiye markii aan xisbigii niyuuci ahaa وعبد الله الظاهر تلفزيون كعالمي وبري تي في مقالة قبلي